Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan qaadanaynaa qaybta labaad ee Java Swing Controls. Xiisadii ugu dambeysay oo aan soo dhigo waxaan ka hadlaynay Java Controls Part 1 oo aan uga hadalnay 20 control iyo sharaxaad hore oo qaarkoodna aan aragnay. Marka Part 2 ayadana waxaan qaadanaynaa 20 kale marka aan isla aragno insha Allah. Intaan control ayaan Part 2 inaan uga hadalnaan jecelnahay anagoon mid u galeen insha Allah. Sidoo kale waxaan hal mar is xasuusinaynaa Part 1 Java Swing maxaa lahaa, farqiga u dhaxeeya maxay ahaayeen AWT iyo Swing, JFC maxaa lahaa iyo controladii. Marka controladii insha Allah ayako practical ah ayaan arki doonaa xiisada ku xigto insha Allah. Java Swing maxaa lahaa? Java Swing waa qayb ka mid ah Java Foundation Class. JFC ayaa qayb ka mid ah JFC waaye. Waxaana loo isticmaalaa in lagu abuuro ama lagu sameeyo applicationada Windows based ka ah. Wuxuu ka dhisan yahay oo dushiisa ka dhisan yahay macnaha balance u ah AWT sidoo kale JFC oo qayb ka mid ah JFC waaye. Waxaan loo soo gaabiyaa Abstract Window Toolkit. Waana Java Swing guud ahaan koodkiisa oo dhanna waxa ku qoran yahay si guud ahaan Java. Ma jiro wax ka baxsan Java. oo hadafka lagu leeyahay waa maxay? AWT wuxuu ku tiirsanaa Window. Xiisada hore sidaan soo sharaxnay, Windowga ama OS-ka ku jiro computerkaada ayuu ku tiirsanaa beer classes oo OS-kaas isticmaalayo oo isagana la isticmaalayo, taasoo ahayd entirely written in Java ma ahayn AWT. Marka Swing waa written in Java totally. Unlike AWT wuxuu kaga duwan yahay Swing wuxuu kaga duwan yahay AWT. Wuxuu ku siinaa platform independent. Wuxuu free ka yahay oo xur ka yahay oona la falgalaynin platformka markaan leenahay waxaa ka wadnaa OS-ka. waxaana loo yaqaanaa sidaa darteedna wuxuu yahay lightweight component. Java X.Swing package wuxuu ku siinaa kalaasyo Swing API oo Swing API ku siinaa sida JButton. dhammaan Java X.Swing kalaasyadiisa waxay ku bilaabanayaan J. marka buttonkii JButton adeena text field JText area. waxyaabahan oo dhan example-ladan iyo example kale oo dhowr ah ayaa classkaas package-kaas ku jiro. farqiga u dhaxeeyo Java AWT iyo Swing. AWT componentdiisa waxaan leenahay waa platform independent, Swingigana platform independent. AWT waxaan leenahay wuxuu ku tiirsan yahay kalaasyadiisa iyo waxyaabaha componentdiisa Windowga markaas computerka ku jiro. muuqaalka Windowgaas OS-kaas muuqaalka uu leeyahay oo yeelana Java Swing component, laakiin samaahan platformka waa ka madax banaan yahay. AWT waxaa loo yaqaanaa heavyweight sababtoo ah wuxuu isticmaalaa beer class. Swingigana waa lightweight sababtoo ah ma isticmaalo beer class. kalaasyadiisa dhammaantood waa written in Java, waa all Java waaye. AWT ma support gareenayo pluggable look and feel oo ah muuqaal ka duwan muuqaalka Windowgaas uu leeyahay. ma samaysan kartid mana yeelan kartid. For example, haddii Window oo aad isticmaalaysay oo AWT classes ahna wax ku diyaarisay, ma isticmaali kartid muuqaalkii Mac ama muuqaalka foomamyada kale
ma isticmaali kartid. Swingiga laakiin waa support gareynaa adigoo window isticmaalayo oo muuqaal aan windowga u ekeen ayaad koodkaada ku samaysan kartaa. Look and feel loo yaqaanaa. Swingiga marka waa support gareynaa muuqaalo kala duwan. Muhiim maahan inuu u ekaado windowgaada hadda isticmaalaysid. Halka AWT-na oo qasab yahay. AWT wuxuu ku siinaa less component marka loo fiiriyo waa swing, sababtoo ah tiro kooban oo component ah ayuu leeyahay. Inta kale waa maxay? Dhammaan waa pure class oo wuxuu ku wada xirmayaan windowgaas ama OS-kaas componentyada isticmaalo ayaa la isticmaalo oo la share gareynaa. Swingiga laakiin waa powerful component. Wuxuu leeyahay sida table, list, scroll pane iyo kuwo kale dhowr ah oo san lahayn AWT-ga. AWT ma raacaya habka MVC. dabcan ASP.NET waa soo aragteen. MVC koodadka iyo qaabka loo sameeyo waa aragteen. AWT ma support gareynayo. Sidoo kale PHP xataa MVC uu leeyahay. Applicationada oo online based marka la sameynayo ayaa aad loo isticmaalaa MVC. AWT ma support gareynayo. Swingiga waa habka uu samaysan yahay waa habka MVC ogolaanayo. JFC waa maxay? JFC waxaa la soo gaabiyaa Java Foundation Class. waxaana waaye kooxo GUI component, graphical user interface component kaasoo fududeynayo dhismaha desktop application. Componentyada ama controllada oo part 2 aan uga hadli rabno. waxa ugu horeeya waa JPassword field sida aad u jeedtiin muuqaalkan oo meesha ku waxaysan. waa text field oo hab u samaysan password inaad gelisid, sababtoo ah passwordka meelaha gelinaysid uma baahnid in passwordka qofka uu gelinayo in la arko xarfaha oo korkiisa hore laga dareemo ama isha lala xado. sidaa darteed waxaa Java waa control gooni ah. waxaana loo yaqaanaa Java password field. waxaa loo isticmaalaa kaliya password entry ayaa loo isticmaalaa. Java JCombo Box waa VB markaad joogtay waxaad u taqaanay drop down list. waxaa soo muuqanaya waxa waaye qaybtaas kore oo US ku qoran tahay oo bannaan. waxaa furanaysaa lisigana soo daadanaya marka aad falaartaas taabatid. lisiga marka soo daato mid kamid ah doorne midka aad doorato wuxuu kasoo bixi doonaa kasoo muuqan doonaa qaybteed textiga oo falaarta ku aadan. marka drop down list ayaa loo yaqaanaa. inta Java marka la joogana waxaa loo yaqaanaa JCombo Box. The object of choice class. objectigan waa objectyada ku suurtagelinaya in aad wax doorato. choice isiisid waxaa loo isticmaalaa in uu soo bandhigo pop-up menu list oo aad wax ka dooran karto oo inuu ku soo bandhigo oo soo daadanayo marka aad kaliya dhahdid. listkaas qofka oo userka ah wax kamid ah ayuu dooran doonaa. midka uu doortana meesha ugu koreyso ayuu kasoo muuqanaa. JTable waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo daato hab qaab table ah. sida had u jeediin waa daatadaas database ka yimaado ama adiga gacanta toos ugu qor. meel daatada ka yimaado wuxuu u bandhigi doonaa hab table ah. waana VB waxaad u taqaanay data grid view. wuxuuna support gareynaa daatooyinka kala duwan in uu soo bandhigo. JTable class isiis waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo data hab tabular ah.
wuxuuna ka kooban yahay row iyo column. JList objectiga JList wuxuu kusoo bandhigi doonaa liis oo qoraalo ah. liiskaas the list of text item waxaad usad garay kartaa habay kartaa sida hadda meesha kaaga muuqdo. waa list item 1 item 2 item 3 item 4. liiskaas mid kamid ah dooran kartaa ama waxaad dooran kartaa hal iyo wixii ka badan ayaa ka dooran kartaa. waxaana herad gareynaa JComponent class. JOption pane waa alert dialog box ama sheeg in qofka oo waxaa lagu talagalay in oo shaashada ay soo boodo oo dhaho kaliya moobta inaad xaqiijin ayaa lagu talagalay confirmation ama in userka daato xog loo qaado ayaa loogu talagalay. JOption class waxaa loo isticmaalaa to provide standard dialog box oo standard ah sida message dialog box in qofka message ugu soo bandhigto box oo caadi ah oo warbixin aad ku siinayso halis ama waxa ugu digaysid. confirm dialog box oo la rabo inuu wax ku xaqiijiyo sida faylal markaa rabto inaad save garaysid ama wax lamid ah ama adigoona save garaynin marka aad waxaa dhahdid sheeg hadduu alla ku rooyahay cancel camalaa dhahdid moobta inaad kansashid iyo waxaas ah waa confirm dialog. ama input dialog oo lagu talagalay baasweerada faalasha baasweerada lagu xiray marka qofka oo furo inuu soo boodo baasweera faylka ku xiran geli baasweerka numberka geli lagu furaayo ama userka in xog ugu aroorisid oo ah macluumaad mar alaada markuu systemka soo galaayo in oo xog yar oo reebo loogu talagalay. marka isagana sidoo kale waa powerful waana aad loo isticmaalaa componentigan. JScroll bar waa muuqaalka hadda sida meesha kaaga muuqdo vertical iyo horizontal uu leeyahay waxaana lagu talagalay shaashada kor iyo hoos in lagu socdo. componentigan hadda inta badan lama isticmaalo sababtoo ah component control kale ayaa by default u wato JScroll bar. marka si kaligiis in la isticmaalo waa laga guuray asal waa la isticmaali jiray laakiin hadda looma badno sababtoo ah JData pane scroll pane iyo kuwaas oo dhan waa wada wataan controladan text editor iyo multitext midka ah text area waxyaabahaas oo dhan by default ay u wataan. JProgress bar controlkan sigana waxaa lagu talagalay oo lagu isticmaalo in lagu soo bandhigo shaqada meesha marayso heerkay marayso gabagabo bilow inta dhiman iyo waxyaabahaas in lagu ogeysiiyo. dabcan in badan waa aragteen windowga file markaad kubiyeysanaysid marka aad file soo degsanaysid internetka ama wax lamid ah dhammaantood wuxuu ku siinaa taskiga intoo maraayo heerka maraayo ayaa loogu talagalay in lagu baaro. marka controlka noocaas oo kale aad rabtid inaad isticmaashid waa JProgress bar. Kalaaska ICUsid waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo progress of a task shaqo socoto heerka ay marayso ayaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo. J3 dabcan stylekan qaabkan naqshadan oo u samaysan yahay dabcan waa aragteen in badan. J3 waxaa loo isticmaalaa in hierarchy ama structure-ka datada siday u kala horeyso oo ay isugu jirto. for example folder samaysatay folderka faylala ku shubta ama folder kale folderka gudihi hadana folder kale oo si leeyahay data hadana ku jiro qaabka noocaas ah marka rabtid inaad soo bandhigtid
inay soo hoos imaadaan dhammaan hal mar aad wada aragtid waxaa la isticmaalaa J3gan. Componentgan in badan waa ku aragtay ma computer markaa furto geeska midig ama muxuu ahaa ii sheeg file markaa rabtid in aad open soo dhahdo Wordka ama Excelka marka aad open dhahdo wuxuu kuu soo bandhigi doonaa shaashadaas qayb midig iyo qayb waxay kala leedahay oo muxuu ahaa bidix. qaybta bidixda xigto wuxuu diyaarsan yahay naqshad ah kala sareyn ah. naqshada kala sareynta ah wuxuu ku diyaarsan yahay waxa loo yaqaan inta J3 waxaana loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo daatada qaabka ay isku leedahay ay muxuu ahaa parent child iyo childiga qaababka ay isku hoos imaanayaan ama hierarchy wax kala sareeyo. J3 waa complex component wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan root node oo ah the topmost mid ka noqonaya parentiga sida hadda meesha kaaga muuqdo style folderkaas ah waa parent folderkaas waxaa ku dhex jiro laba folder loo yaqaan color iyo file loo yaqaan font bes ku dhex jiro. folderka color isagana waxaa ku dhex jiro red blue black green marka dhammaan qaabkaas ayuu ku tusaa sida ay faylasha isku hoostayaan parentiga u ah childiga waa kuma in lagu ogaado oo lagu tuso ayaa loogu talagalay componentgan. Java Color Juicer kan waxaa loogu talagalay controlkan componentgan in lagu soo bandhigo ama aad ka doorato liiska kalarada dabcan inta hadda ka muuqato meesha RGB kalaradii caadiga oo diyaarsan kuwa aad isku muxuu ahaa adiga samaysanaysid oo isku dardaraysid kalaradii hexadecimalki waxaas oo dhan ayaa soo bandhigaa wuxuuna kuu suurtagelinaa in aad ka doorato kalar ka doorato ayuu kuu suurtagelinaa. classkan Color Juicer loo yaqaan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo abuuro Color Juicer dialog box waa muxuu ahaa window oo aad ka dooran karto color userkana inay colorka allaala meesha ugu muuqdo ayaa dooran karaa colorkiisa uu siiyo farto kale for example ama backgroundka ama waxyaabahaas oo dhan inuu farta ka bedelo ama colorka ka bedelo ayaa loo isticmaalaa.